haysato ay ku wada nooshay ku wada joogto hawlaha caynkani waa qaar muddo soo taxnaayo la diyaarinayay maaha wax madaxweynayaashu inta soo toosaan oo yiraahdaan Cumar u yeedh marka hawshan mid ku lug leh maaha isafgaran waaga dhex yaala Kenya iyo Soomaaliya Soomaaliya waxay ka baratay talaabo ay qaado cawdaan u jarnay Alpha Conde ku tiriye Guinea mar Muuse bixi tagay hadda shalay farmaajo iyo Muuse isagoo joogana Djibouti wada joogana wax dhibaato ma jirin xaaladda caynkaas ayaa xamar ka taagan waxa jira eray Soomaaliyeed oo la yiraahdo qalayn anigu ereygaas macnayaal badan buu leeyahay mid kamid ah oo ah kii aan ugu horbartay wuxuu ahaa yaraanteedii iyo kontonadii markay dumarku isku dhaxkariska karinayaan ayaa hilibka la yar qaleeyayo oo aan garanayo awlal baan ku garaadsaday feedhaha la jajabiyo dabeedna distii lagu rido oo xawaashiriye saliideeriyo marar qaar kood soo baabahada lagu sheelo oo jagayacdahayo marka dambe bariiskoo qasaasilan ayaa lagu shubi jiray waxa loo oran jiray hilibka waa la qaleeyay caalimkii weynaa naxariistii jannaalaha siiyo Xabad Ibrahim oo loo yaqaanay dhabandaran markuu cilmiga ugaadhayo ugaashay ka sheekeynay wuxuu ka sheekeyn jiray tabaha loo ugaadhsado mid kamid ah oo loo oran jiray qalaynta oo biciidka ayaa madaxa iyo duudka sare inta laga saaro saanta ayaa dameer la dul saari jiray si ay ugaadhu u moodo inuu biciid kale yahay oo la daaqayo oo iska caadi oo iska degan ninka gabraaranayana uu ku gaban jiray oo dabeedna markuu dhex galo uu ku ugaarsan jiray qalayn baa la oran jiray waxa la oran jiray qalayn xaaladda maanta xamar ka taagan ayaa iska qalayntaas midnimadan ay carabka ka dhigilaayihiin way qalaysantahay diblomaasiyadoodu way qalaysantahay Soomaalinimadoodu way qalaysantahay doorashooyinku way qalaysan yihiin ereyga xor iyo xalaal uu qalaysan yahay wuxuba waa wax wada qalaysane wax dhaba oo runa maaha waa diblomaasiyadda qalaysan waa midnimada qalaysan ee maran ee aan meel la jirin halkeebana loogu baaqayaa marka la leeyahay midnimada Soomaaliyeed halkeena loogu baaqayaa soo halka roob la isoo garawo joogo oo martiya oo la soo dhaweeyo airportka laga hortago la casuumo intaasoo neef loo qalay isagoo magaaladii jooga aanu ka qayb galin Soomaaliya soo dulqaadka dani maaha ka caynkaas kaga daba sii galbiyay ee airportka geeyay si aan bixiyay marka xaaladaas Soomaaliya ka taagan tahay maanta dhul Samareeb buu joogaa mar waa Samareeb bay dhaahdaan mar ma dhul Samareeb bay dhaahdaan ereyga reeb iyo magaalada waxa isbadayna waa la garan laayay halkaas uu joogaa halkaana guul kala soo hoyan maayo waa dawlad goboleedkii labaad tii Shabeelle saasay u kala xayanaysaa Jowhar iyo Beledweyne u kala taagan tahay Jubaland lama hayo gedo iyo waxay u kala taagan tahay Kismaayo mala wax maanta looba lafta gareen ayaa jiray sanadanihiisa ayuu ugu jiraa waxa caynkaas ayaa la oranayaa midnimo Soomaaliyeed waxa caynkaas ayaa la oranayaa doorasho xor ah oo xalaal ah waxa caynkaas ayaa la oranayaa waa dawlad Somaliland Kenya uma ay tagin baahi ay Kenya u qabto Somaliland waa xaqiiqo ka jirta geeskan Afrika oo dhaba oo la taaban karo Somaliland dalalka aanu dariska nahay igaad
dalalka Afrika iyo adduunyaduba way ku qasban tahay inay la macaamisho waayo qayb baanu ka nahay nabadgelyadaanu qayb ka nahay isu gudubkaanu iyo isgaarsiintaanu qayb ka nahay xakamaynta cudurradaanu qayb ka nahay oo waliba maanta uu COVID jiro waaqica dhabta ee geeska Afrika ka jira ee loo yacdo baasaboorka lagu galo ee lagaga soo baxo ee wajaale lagu galo ee lagaga soo baxo waa inta noogu dhaweyn xuduudda la leenahay ee aanan dab iyo wax qarxa halkan ka dhoofinin oo aanan dariskayga ula tagin oo xeebtaydu nabad tahay oo burcad lahayn burcad badeed lahayn waaqicaasaanu nahay oo adduunyadu way ku qasbantahay inay nala macaamisho annaguna waan ku qasbanahay inaanu u hogaansano shuruucda caalamiga Kenya dana badan baa halka yaala shaqaalaha halka shaqeeya miidaanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo adeegga bulshada ku jira waa dad Kenyaana hadday sidaa uga shaqaystaan halkan oo hay'adaha caalamiga u shaqeeyaan oo ay madaarista iyo jaamacadaha dadku gaarka u leeyihiin ka shaqeeyaan oo ay tirada inta la ku joogaan intaasi waxbay goysaa inta anaguna Kenya waxbaanu kaga rabnaa annagu Kenya uma tagno lama macaamilo adduunka xumeeyo walaalihiina Soomaaliyeed waayo xumaanaba naga dhaxayso waxaan nagu haystaa waxa weeye gooni isu taag iyo way goosteen cid aliyaala cid aanu ka goosanayna ma jirtay bari hore ayaa nala gooyay oo bendoodu 180 Hargeysa ku bilaabantay 280 ku bilaabantay 190 baanu gobolada waqooyi xoreynay haddaanan gaar isu taagin oo aanay guurtadeedii burca ku shirtay sidaan sameeynin qaska iyo qalaanqalka xamar ka taagan ayaanu maantana ka mid ahaan lahayn dadkayguna may karayn 10 sanadood hore ay soo dagaalameen ilaa 190 ilaa 180 30 sanadood ku dara waxba nagama soo hadhin dagaalku mar buu haboonaayo waqtiyadii 80nadii ayuu haboonaa waqti maxamed siyaad barre tagay islaaya aqli maaha horta aqliga aanu ku maqanahay waa kaasoo badbaadada dadkayga iyo dalkayga Kenya danahaas naga dhaxeeya annaguna danbaan ka leenay iyaduna danbay leedahay Soomaali ku xumeeya maaha Soomaali ku waxyeeleeya maaha Soomaali annaga uga damqasho badan kuwa xamar joogay dawladda isaga dhigaya bal waxa ka warantaan aqliga oranayo diblomaasiyiinta 7 maalmood kaga baxa xamar iyadoo ubucdooda iyo calooshooda ay dhex fadhiyaan taangiyadii iyo madaaficdii Kenya waa aqliga weey reer Somaliland baa ginitay cilaaqaadkan u jarnay waxaasi wax soconaya maaha midnimaduna waa taa qalaysan dawladnimaduna waa taa qalaysan waa taa sarriftay jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ee labada gobol ee isu tagay ahayd mid sidaa sirsirka uga dhigtay ee u sarriftay weey waxa la yaalo waxa naga nagu yeelayaa Soomaaliland hadaanu nahay cilaaqaad la jaro iyo cilaaqaad dad loogu hanjabo maaha ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu dadka Soomaaliyeed bogooda burcad isu mariyo inuu dadka Soomaaliyeed tuso dawladda federaalka waxa ku habooneed inay halkan Hargeysa ku yeelato wakiilo Hargeysana ay xamar wakiil ku yeelato la isxaq dhowro la is ixtiraamo waxaan moodaynay inuu dagaal dhacay oo dagaal weyn dhacay oo la isbartay oo waxyeeladiisa iyo dhibaatadiisa la ogaaday oo la kala badbaadayo bal ninka ay aqligiisa maanta la tahay haddana mar labaad ayaa tiyo kale yeeli kartaa oo nin naftiisa been ugu sheekeynay hadalka waxaan ku soo ururinayaa annagu waanu soconaynaa meeshaan doonaan tagaynaa cidaanu doonaan la xiriireynaa cid aliyaale cidii dan laga rabo waanu la xiriireynaa annaguna dan kale ayaanu ka leenahay dantayadana xamar lagama yeedhiyo xamarna ma go'aamiso xamar malaa waxa ku haboon in gubtaa way hoostaa laaye inay inteeda ka shaqayso oo ay Somaliland iska ilowdo waxa la yaalo waraaqo maanta gacmaha ugu jira
farmaajo iyo dowladdiisa ku meel gaarka dowladda federaalka ma jiraan way idinkaas oo arkaysaan oo yeekayaashii iyo rankii iyo baashayaashii iyo qulaamadii iyo raani wax waliba waa ka maqayn waxa ay tuurtuuraysaa ay kolba keenay wajiga kaga dhufanaysaa waa lixda oo meel aliyaana meel u gaadhaana ma jiro hadday ugu badato waa toddobaale biigaasaa gacanta ugu jira waayahaasaa jira Somaliland waa cadceedaa ka ifaysaa geeska Afrika waa waaqica dhabtee jira midhahaanu beeranay ugu badan ee imika baxay ee aan midhahoodii goosanayno nabadda ka mid ah eenu adduunyadoo dhan gaadhsiinayno idinkaa ugu xiga idinkaa u baahan oo aan u baahnaynna meel kale u doonataan halkan u soo doonataan oo tidhaahdaan sideebaa dadkiina ku nabadayseenoo sideebaa ku degantihiinoo madaxweynihiina madaxtooyada intuu ka rooxo sii lugeynaya aqalkiisii u qada tegaya sideebay u suurtooday inaad taana weydiisaan bay ahayd marka hadalka waxaan kaga baxayaa annagu aayahayagii gacantaanu ku haysanaa dalkayaga iyo dadkayaga annagaa ka talina mid maydhaaman maaha mid qalaysan maaha nabad waarto oo dhaba ayaa halka ka jirta oo ku timid niyad samida iyo isu hilowga iyo saamaxaada dadka dhexdiisa dadka dhex martay waxaanu leenahay walaalahayaga Soomaaliyeed waxa la yiraahdo waxaanu u qabnaa ma jirto walaalihii jira noqda annaguna walaalihii jiraan noqonaynaa dawladda wax waliba u qalaysan yihiin yaani dadka isku dirin sida isugu dirtay kuwa ay gacanta ku hayso ama ay u sheeganayso madaxtinimada